waxaan soo dhaweynaynaa mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada oo hogaaminayo wasiirka wasiir dowlaha wasiir ku-xigeenka agaasimayaasha kala duwan waa idinku soo dhaweynaynaa ajiibteen maatinka maanta waxaan idin soo wacnay waana guddiga adeega bulshada iyo xubno kale guddiyadeena kale ah oo senatarada ah oo isku wada jira marka waan bilaabanaynaa barnaamijkeena ku soo dhawaada waxaan rabaa inaan wax yar oo kooban idinkaga sheego horta xaaladda waxbarashada ee dalkeena kadib aan wasaaradda iyo howlaheedii waxaas ii soo geli doonaa wixii aad su-aalo qabtaanna waxaan jecelahay si laafurnaana inaan uga jawaabno dalkeena marka adduunyada loo fiiriyo wuxuu kaga jiraa meesha ugu hooseysa ee fursadda helitaanka waxbarashada meesha ugu hooseysa laba qof iskuma khilaafsano maalmadii waad maqlayseen Soomaaliya dalkeena wuxuu meesha ugu hooseysa kaga jiraa musuqmaasuqa iyo wuxuu meesha ugu hooseysa kaga jiraa umul raaca iyo wuxuu meesha ugu hooseysa kaga jiraa waxbarashadu kaga jiraa maxaa lagu qiimeeyaa waxbarashada dal u leeyahay waxaa lagu qiimeeyaa inta hesha fursadda waxbarasho ee joogto da'da waxbarasho marka haddiiba da'da laga soo qaado waxbarasho inay tahay 6 sano ilaa 18 sano inta fursaddaas hesha markii la isku celceliyo 25% waayo macnaheedu waxaa waaye 75% dadka da'daas joogo ma haystaan fursad waxbarasho ma haystaan dadka aan fursad waxbarasho haysan marka dadka da'daas joogo waxaa lagu qiyaasaa inay 5 milyan yihiin marka 25% macnaheedu waxaa waaye 1 milyan ayaa fursad haysato 4 milyan ayaanan fursad haysan adduunka meel waxaas ka jirta lama arko dawlad faqiir ah noqoto maxaan ku iraahdaa duruuf kasta ku jireeno dadkaas ay ku jiraan طبعا tiradaas waa si kala badan yihiin waxa laga yaabaa markaad kor aado oo Puntland iyo Somaliland aado tirada inay kor u yarkacayso dhowr iyo 30 40 inay gaartaa laga yaabaa markaad hoos u soo degto galmudug iyo koonfur galbeed iyo aad timaadid tirada waxa laga yaabaa inay dhowr iyo 10% inay noqoto dadka wax heli karo oo fursad heli karo waxa kale oo quality waxbarashada iyo nooca waxbarashada iyo waxyaabahaas waa sheekooyin kala waa طبعا waxaa fursad helid la'aanta ay ku sii badan tahay bulshooyinka nugul oo ay ugu horeeyaan gabdhaha oo ay ku xigaan barakacayaasha iyo dadka baahiyaha gaarka ee qabo su'aashu waxay tahay maxaa keenay inaynu saas noqon sideedaba waxbarashada adduunka mas'uuliyaddeeda waxay saaran tahay dawladday saaran tahay sida amniga mas'uuliyadiisa ay dawladda u saaran tahay oo garsoorka mas'uuliyadiisa ay dawladda u saaran tahay waxbarashadu shaqo private ama waxaa loogu talagalay sida dastuurkaba ku qoran sharciyada caalamiga ku qoran xuquuqul insaanka ku qoran sustainable development goalska United Nations adduunka ku heshiye ku qoran waxbarashadu waa xaq oo muwaadinku leeyahay xaqaas waxaa lagu leeyahay dawladda lagu leeyahay waxaa laga yaabaa dawladdu waxbarashada ay bixinayso tayadeeda inay hooseyso ama wax aysan bixin karin ay jirto kuwaas loogu talagalay hadday jiraan iskuulo private hadday jiraan ganacsato hadday jiraan hay'ado ka shaqeeya inay fursadaas waxbarasho ay bixiyaan wadamada horumaray waxbarashada dawladda gacanta ku hayso in yar mararka qaar 10% boqolkii meelaha ugu badan tahay 15 ayaa private inta kale waxbarasho ay dawladda leedahay marka waxaan heerka u gaarnay dawlad waxbarashadii iskale oo maalgelisa oo hagta oo ka shaqeyso ayaa la waayay dawladaheenna markii la aasaasayayna dee priority kale mudnaan kale oo ka sii khatar badan ayaa dadku u soo baxaysay oo ugu horeyso arinta amniga ay ugu horeyso طبعا قيب وحكاء وعيغا ددكينا iyo wacyiga
dowladnimada naftiisa dadku umaanay baraarugin waxbarashadu maxay tahay ahmiyadda ay leedahay waxbarashada waxaa loogu talagalay inay abuurto dhowr arrimood qofka inay farsamo barto inay aqoon barto qofka waxbarashada uu wax ku noqdo iyo waxbarashadu inay dadka wada noolaansho barto التعايش waxa la yiraahdaa living together waxyaabahaas hadda markay naga maqan yihiin oo aanu isdilayno oo aanu wada noolaan la'nahay sida hadda waxa meelo badan oo dalkeena ka dhacaya macnaheedu waxa way raad waxa kule waxbarashadeena ama yaraanteeda ama systemkeeda ama tayadeeda ayaa raad kule ummado badan oo adduunyada joogo waa kala diin waa kala dhaqan waa kala af waa kala isir ismana dilaan annagoo waxaas wadala waxaan isu dilayno waa wax la xiriira la'aanta waxbarashada mararka qaar waxaan aad u soo dareemay hadda intaan wasaaradda imid in dad badan oo waxgarad ah mas-uuliyiin ah aqoon-yahana aanay xaaladda dhabta ee waxbarashada dalkeena aanay ka warqabin way u haystaan inaan iska fiicannahay jaamacadaa meel ka furan dadaa meel la aaday scholarship baa la tegey laakiin haddii waayadan dee raaja lama isticmaalo waagi hore raajataa la isticmaali jiray qofka feeraha wax ka lagu ogaan jiray doctor laakiin haddeer scan iyo MRI iyo waxyaabo kaloo waxaa soo baxay diagnosis wax kasta ka shifaya xaaladdeena haddii scan la saaro oo dharkan aan iska siibno dad qurux badan ma noqonayno bulsho qurux badan ma noqonayno marka si guud xaalkeena waa midkaas waxbarashada yar ee jirta marka waxaa iska leh dad hay-ada ah bulsho ah ama dad ganacsataa iska leh waxbarasho aada u qaali ah maaha marka loo fiiriyo duruufaha ay ku sugan yihiin qofkii wax heli karay dadkeenna ilmihiisii waa watay meel kale u geystay markaa weydiiso reerkii aaway wuxuu ku dhahayaa haddee ilmihii waxbarashii soo gaareenoo waa dee ugandaan geeyo kenyaan geeyo istanbuulan geeyayuu ku dhahayaa waxaa isugu soo haray kuwa aan meeshan wax badan heli karin kuwaasaa iskuulladan hadda aan aragnay waxu dhiga kuwo badanna oo malaayiin ana haddii la yidhaha iskoolka bishii waa $2 ma heli karaan marka horta xaaladda guud ee waxbarashadeenna meeshaasay joogtaa waxaa kuu soo hartay wasaaradda runtii wasaaradda markaan imaadnay aniga iyo wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka akhyaartan kale waa naga soo horreeyeen waxyaabo wanaagsan oo la qabtay waa soo aragnay waxyaabo culays weyn oo ka jirana waan soo aragnay waxyaabaha la wanaagsan oo la qabtay waxaa ka mid ahayd maanta manhajka waxbarashada ee dugsiga hoose ilaa dugsi sare 12 sano waa dhammaystiran maadooyinkoo dhan waa dhammaystiran yihiin yacni taas waxaa runtii guul weyn dadka qaar lama socdaan waxay iska dhahayaan manhaj kala duwan baa waddanka ka socota oo waxaasay dhahayaan laakiin runtii ma jirto taas waa wasiiradii naga horreeyey shaqo fiican ay ka qabteen meel fiican ay soo gaarsiiyeen waa laga yaabaa inuu u baahan yahay in muraajaco lagu sameeyo oo la horumariyo waa suuragal laakiin meel fiican ay joogtaa waxaa kaleeto iyadana meel fiican laga soo gaaray wax la yiraahdo information education management information system nidaamka xogta waxbarashada waxa ay leedahay wasaaraddu nidaam xogta waxbarashada oo haddii aad haysid imis number oo arday joogo Dhobley oo saakay inta iskuul laga bedelay iskuul kale loo bedelay oo systemka la geliyay systemka haddaad gasho waa arkaysaa saakay dhaqdhaqaaqa iskuulka dhaqdhaqaaqa bedelka ee iskuullada ka socday waa arkaysaa ardaygaas iyo macluumaadkiisa iyo sawirkiisa iyo waalidkiisa iyo telefonkiisa iyo meesha laga helo kulli waad helaysaa ayadana meel fiican laga soo gaaray xogaa yaroo culaysay iska jirjiraan gidaalanka aan ka sharxi doonaa meelaha culayska weyn uu ka jiray waxaa ka mid ahayd macalinka dowladdii Soomaaliyeed
oo shaqaale leh oo askar leh oo xildhibaano leh oo mushaaraad bixiso oo agaasimayaal leh waxaa bayroolkeeda ku jira 900 oo macallin kaliya dalka Soomaaliyana wuxuu u baahan yahay 120,000 oo macallin si dadkiisa wax loo baro marka oo macallin uu dalkan u baahan yahay si dadkiisa wax loo baro bayroolka dawladdaadana waxaa ku jiro 900 oo macallin kun xataa ma dhamo marka waa garan kartaan gaabka intuu la eg 900 oo macallin badankoodu waxay joogaan Muqdisho waxay wax ka dhigaan dugsiyo dawladda ay leedahay oo 26 dugsi ah oo bilaash lagu dhigto gobolada waxba ku firaarsan konton iyo waxtaas lamida laakiin gobolada haddaad tagto ma helaysid dugsi dawladdu ay leedahay oo free ah oo wax lagu dhigto ma helaysid marka culays weyn ayaa meesha ka jiray culaysku ma aha lambarka inuu lambarka kaliya ma aha laakiin dawladdu mala mas'uuliyad ma ka saaran tahay waxbarashada intaanan heli karnaa waa yar tahay iyo waa badan tahay waa hawl kale runtii tallaabadii ay ku tallaabsateen ansixinta miisaaniyadda inay ku dartaan shaqaalaha dawladda ee la qaadanayo 3,000 oo macallin waa tallaabo waxay ahayd annaga aanu aragnay istaraatiijiga oo aad u weyn maxaa yeelay waxay gundhig u tahay meel wax laga sii bilaabi karo laga yaabaa 5 sano kadib inay 30,000 gaarto 40,000 gaarto dadkeenu isla gartaan madaxdeenu isla garato xildhibaanadeena gartaan ahamiyadda arrintan ay leedahay iyo sida ay muhiimka u tahay marka waa bilow wanaagsan oo meel fiican طبعا معلمينta shaqaalaysiin kaliya kama maqno macallimiinta tababara ka maqan 30,000 oo macallin ayaa iskuulada wax ka dhigto iskuulada private ku idin sheegay 22,000 oo kamid ma tababarno wuxuu soo bartay nursing iskoolka biology ka dhigaa macallinnimo uma soo lama soo tababar wuxuu soo bartay IT iskoolka physics oo ka dhigaa macallinnimo uma soo tababarno runtii macallinimaduna waa xirfad marday xirfadda qofka haddaan la barin maxaa macallinimadu waxay u baahan tahay ardayga maskaxdiisa nafsiyadiisa habka uu wax u gaarsiinayo dhibaatooyinka uu qabo waa qof maskaxdiisa lagu dhiibay inaad qaabayso marka buug iyo qalin iyo waxaan xifdi iyo waxaan samay iyo kaliya kuma filna marka macallimiinta hawsha iska badan tahay laakiin tallaabadaas runtii waxay ahayd tallaabo aad iyo aad u muhiimsan waxaanu aragnay oo kaleeto in dadku culays uu ka haysto serviceka dawladda ay qabanayso serviceka dawladda ee waxbarashada u qabanayso waa yaryahay tusaale dawladdu waa saan sheegnay iskuulla male free lagu dhigto marka intaa yar laga reebo bilaash lagu dhigto iskuulladii waalidiinta lacag ka bixiya macallinkii waalidiinta lacag siiyo dawladda uma shaqeeyo imtixaanka sanadka la toonaad marka la gaaro ayay dawladdu leedahay imtixaankan ka qaadaynaa si aad u qaadato shahaado la aqoonsan yahay dawladdu marka waxay dhahaysaa lacag aan imtixaan ku qaadna ma hayne anaga dawladdii kana lacag idinka waa halkii shaqo ee qofka u soo doontay dawladda 12 sano kadib imtixaanku uu galaya marka intuu lacag iska bixiyo markuu dhameeyo oo uu gudbo oo uu yiraahdo shahaado hal isiyo waxa la dhahayaa shahaadana lacag baa laga rabaa lacag keen wixii waanu qiimeynay waa la tashanay wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha go'aan waxaanu ku gaarnay in culayskaas laga qaado waalidka dawladdu ay dusha iyada saarato imtixaan ay dawladda qaadayso lacagta imtixaanka lagu qaadi lahaa keen arday la dhihi karo ma jirto shahaado dawladda ay bixinaysana lacagan ka rabnaaye keen oo dawladda ay u baahan tahay iyadana waan ka dhaafnay waa maqashana kulli laga yaabo dadka aad ay ugu riyaaqeen wax aad u yar waaye wax aad u yar laakiin waa wax guri kasta
iyo qof kasta taabanayo culaysyada runtii kale oo jira waxaa kamid hadda waxaan idin sheegay manhajka inuu diyaarsan yahay uu fiican yahay laakiin buugta waxaa soo daabaca dad ganacsato ah buugta waa qaali marka shalay tiyaatarkan joogay ardadii iyo dadkii ila hadlayay yacni dhowr qof oo ka mid waxay ka hadleen buugta qiimaheeda yacni gabar yar waxay sheegtay 8 aan nahay oo reera aabbahanaga ma shaqeeyo hooyadeena meelahaas wax ka soo qarqaraabta 5 ka mid ah iskuul aada $240 buugta aan ku bixinaa runtii iyaduna waa wax kaleeto oo iyadana culays kale ah marka howlahaas qorshayaalan u sameynay mudane wasiir waxaan rabay iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlahaba iyo agaasimayaasha la socda dhammaan waxaan rabay inaan idin weydiiyo su'aalahan sida u soo socdaan waxbarashadan ka soo shaqeeyay marka su'aalaha kan waxay noqonayaan sida tan kow maxaad waxaa jirta inaad soo dayseen in la qaadanayo 3,000 oo macallin 3,000 oo macallin habraac lagu qaadanayay waxaa ku qornayd in uu jir iyo maskax ahaanba u fayow yahay marka halkaas xaggee bay ka soo galaysaa qofkii naafada ahaa ama naafa maba jecliya yani qofkii baahiyaha gaarkaa qabay sidee buu noqonayaa xaalkiisu mise eray bixintaa wax ka khaldan yihiin oo halkaas waad saxaysaan kow lambar 2 waxaan rabaa inaan idin weydiiyo waxbarashada asaasiga ahi iskoolo free ah ma noo jiraan maadaama aan ognahay in jaamacadda ummadda aad 8 milyan ku bixisaan sanadkii oo budgetkeedu yahay maxaa miisaaniyada idinkaga qorshaysanna tacliimta asaasiga ah aad mataqaana u samaysaan su-aashayda saddexaad waxay noqonaysaa preschoolka ilmaha ah iyo inaad manaahijta kindergartenka inkastoo maasha Allah agaasimu ka hadlay aad baan arinta ugu farxay wax yar taabtay laakiin maxaa idinkaga qorshaysan in manhaj midaysan dalka oo dhan loo sameeyo oo uu leeyihiin ilmahaas anaga oo og in cognitive recognition-kooda si fiican uu kor ugu soo kaco cognition-kooda uu kor u soo kaco xilligaas oo ay tahay sanado aad xasaas u ah oo in la misgareeyo aysan waajib ahayn maxaa idinkaga qorshaysan manhaj dejintooda departmentigooda sidii loo mataqaanay horumarin lahaa iyo macallimiinta u khaaska sidii loo tababari lahaa marxaladaas waxaan kale oo rabaa inaan ogaado seeraalaha ama waxbarashada dadka waaweyn iskoolo u khaasa ma jiraan hadday jiraan se percentage-ka dadka aan aqoonta lahayn ee aan waxbana qorin waxbana akhrin percentage-koodu waa intee ma idiin haysataan datadaas ma haysataan maadaama aad noo sheegteen in data system fiican aad samaysateen oo information system ah waxaan kale oo rabaa inaan kale oo aan wasiir idin weydiiyo drop outska dadka iskoolka ka baxa aan ku soo noqonin iyadoon ognahay percentage-ka ardayda iskoolka timaada marka ay maalan 90% tahay by this semester-ka koobaad haddii la gaaraba laga yaabo in 30-40% ay iskoolka drop out ka noqdaan iyadoo oo ay jiraan haddii la doono reasons dhaqaalo haddii ay jiraan reasons dagaal dhibaato kaleeto waalidkii oo kala taga lacagtii oo laga bixin waayo waxyaabo badan ay jiraan ma jiraa percentage marka aad ogtihiin oo drop outska ay leeyihiin mase idin kala qaybsan yihiin gabdho iyo wiilal dadkaas drop outs ka noqday su-aasha kaleeto idin weydiinaya waxay tahay iskoolada dugsiyaasha quraanku ma waxay hoos yimaadaan wasaaradda waxbarashada mise waxay hoos yimaadaan wasaaradda diinta iyo awqaafta mase idin register garaysan yihiin macallimiintaas tababaro sama siisaan ah qaabka ilmaha loola dhaqmayo iyo qaabka loo baahan yahay inuu loola dhaqmo ardayga waxaa kale oo su-aalahayga ka mid ah maleedihiin departmenti maadaama aad tirahdeen 12 department bay wasaaraddu leedahay maleedihiin departmentiga dabagalka manaahijta lagu dabagal iskoolaadka lagu dabagalayo manaahijta maleedihiin departmentigaasaytii anaga oo og in maanta la qaatay student centered methodology la qaatay oo la rabo ardaygii in la concentrate gareeyo oo macallinkii uu ka soo guuro meeshii uu joogi jiray ee ahayd teacher centered methodology iyada oo macallimiinta la ogyahay manaahijta inay ku adag tahay iskoolo badan markaan tagno ee manhajkiiba fahmaynin iyo ahdaaftiisa manhajkan hadda jira ahdaaf mucayan uu leeyahay oo la rabo in la fahmo marka ahdaaftaas si loo gaaro ma jiraan mufattishiin kormeerayaal aad ugu talagasheen in all dalka goboladiisa iyo banaadirba ay tagaan oo ay mataqaana ay ku kormeeraan macallimiinta manhajkii qaabka ay u dhigayaan iyo buugga macallinka qaabka ay u maamulayaan
waxaa kale oo aan ku weydiin lahaa ma jiraa departmentiga hagidda atawjiih wal-irshaad tarbawi qismiga la yiraahdo ma jiraa dad badan oo cilmi nafsi tarbawi dhigtay baa noo jooga oo dalka atraaftiisa kala jooga oo ilaa heer PhD ku diyaariyay ma laga faa'iideystaa dadkaas oo 12 department oo sheegteen ma ka mid yahay departmentigaas oo loogu talagalay dalkeenu dagaalo badan buu soo maray waxay u baahan yihiin ilmihiisa social support waxay u baahan yihiin maxaa la dhahaa ii sheegay in ma taqaanaayay macalinka la wacyigeliyo macalinku fahansan yahay ahdaafta tarbawiga ah ee laga leeyahay processkan tacliimiga ah oo dhani muxuu yahay macalinku waa inuu yaqaano mana ahan inta kaliya tawjiih wal irshaad tarbawigu wuxuu ka fargareynayaa de waad fahmaysaan inaan idin sharxa maaha wuxuu ka fargareynayaa waxbarashadii ahdaaftii tacliimiga ahayd ahdaaftii tarbawiga ahayd oo wasaaradda tarbiya iyo tacliim ay u taagneyd oo dhan buu ka fargareynayaa iga raalli ahaada su'aalahaygu aad bay u badnaayeen laakiin waa baahi jirta oo aan doonayno in mataqaanaayay aan kulligeed wada fahanno insha allahu tacaala su'aalaha ay senator sareedo weydiisay runtii su'aalo muhiim ah oo runtii noo ahaa wuxuu ahaa dhammaanteen inuu noo wada qoran yihiin laga yaabay qaarkood wasaaradda waxbarashada wax badanaa la soo shaqeeyey imtixaanka hadda aad ka hadlaysaan centralizedka 2018kii anaa coordinator ka ahaa South Central Soomaaliya la bilaabay mana ogi goor lacag uu noqday waxaan laga yaabaa wasaaradda waxbarashada waxaan kusoo wareejinay 2014kii ee hay-adeenu kusoo wareejisay waxaa u maleynaa intii dambe inay lacagta noqoto laakiin anaga si free uga qaadi jirnay textbookana inaan hormanays gareeno curriculumka ma jirin waa run waxa la qaadan jiray manhajyo kala wada duwan hay-adeena waxay hay-adii ugu horeysay isku keentay daladihii waxbarashada si manhajkii loo mideeyo markii la garan waayo qofna lama dhihi karo kaad haysatay ka tag waxaa markaas isku dayna inaan keeno buugaag FBNS la siiyo SOF la siiyo SEF la siiyo iyadii marka waxay sameysay iskuuladeedii u qaybisay marka daladii FBNS oo kala duwaneed laftirkeeda waxay sameysay hal textbook markii loo qaybiyay oo aan u furnay meel library u furnay waxay keeneen inay kii u qaybiyaan iskuuladii si la isugu soo dhawaado marka meel fogaa laga keenay marka tusaale ahaan Ismaaciilan kulay wax badan isla soo shaqeyneenay higher educationka weligiisu joogi jiray marka buuggayga xitaa masterka aan diyaarinay wuxuu ahaa enrollmentiga gabdhahan ka diyaariyay masterkayga maalintu dhaawacmay laftirkeedan buugga qoraay marka runtii aad idinkaga mahadcelinayaa su'aalo badan ma qabo waxaan qabaa macallimiinta 3000 see loogu qaybiyo isteediyada 3000 see ugu kala qaybisan isteediyada iyo gobolka Banaadir isla macallimiintaas meeqa gabdha ah waayo waxaan ognahay iskuulada macallimiinta gabdhuhu aad ay ugu yar yihiin xitaa xilligii 2001 markaan macadkii teacher trainingka FBNS aan ka baxaynay macallimiinteeni gabdhaha waxaan ku soo baxnay 67 arday 67 macallin aan ku soo guuleysanay hal iskuul oo qaataan weyne gabdhaha macallimiinta marka maxaa qorshaha oo gabdhaha macallimiinta in la dhiirigeliyo u baahan yihiin waxay u baahan yihiin xitaa waxaan sameynay iskuulo gabdho kaliya sameynay si gabdhihi aan u dhiirigelino 67 soo qalin jabisay say shaqo u helaan waxaan furnay iskuulo ay iyaga ka dhigaan marka maxaa idinkaga qorsheysan gabdhaha macallimiinta meeqaas number ahaan ay macallimiinta 3000 ay ka heli karaan iyadana su'aalaheega ay kamid tahay sida hadda aad manaahijta hadda manhajkan markii la qoraayay dugsiga saraan hormarinay hay-adeena dugsiga dhexena 2015kii ahaa oo la qoray syllabuska laga shaqeeyay marka manhajkan non formalka waxa manhaj uu leeyahay marka manhajka non formalka isagana maxaa idinkaga qorsheysan inaad sameysaan waxa kaloo jira isagana national education policy-ga waxa hoos imaanaya isagana waxa jiray special needska iyagana wuxuu lahaa policy ay markaas hay-adeenu ay xoogaa isagoo qoraal ku socda aniga hay-adda ka soo tegay marka isagana kii special needska policygiisii intuu idin marayaa waxaa kaloon ku darsanayaa kii aad ka dhawaajiseen xanaanada manhajkeeda runtii muhiim aad u muhiim u yahay waa
inaad meel idin marayn waa noo sheegteen isagana waxaan jeclaan lahaa su'aalahayga intaas inaan kusoo koobo maadaama dad badan iga dambeeyaan oo mahadsan shardigii qodobka saddexaad ku qoraa ee jir ahaan iyo maskax ahaan inuu fiyow yahay kan maskaxda meel kale lagu daray kan jirkana waa laga saaray marka wax mushkilada dhankaas kama jirto waa shuruudahaas waa la hagaajiyey marka horena si khalad unbaa loo fasiray waxay ahayd jir ahaantu amaa laga waday qofka inuu qabo cudur faafo oo jirkiisa يعني dadka wax ku faafin kara in laga hubiyo intaas ay wax loola jeeday dadka baayaha gaarka ee qabo ma aha ma asaas u baahay markaa ma hasantahay inta kale waxaan ku daynayaa gaar ah in xarumihii aqalka sare ee baarlamaanka ay ku jiraan dad wax badan waxbarashada dalka la socda waana loo baahan yahay su'aalaha sida dhibliga u taabanayo waxbarashada dalka iyo caruurteena in miiska la soo saaro si jawaab loogu helo talooyinkana maxaa la yiraahdaa la isugu darsado waxaan ka bilaabayaa su'aashii ahayd adult education markii hore ma jirin oo waxbarashada dadka waaweyn mar goor dhow ay bilaabatay agaasimaha faahfaahin doona percentage-keeda waxaa lagu sameyn jiray banaanka wasaaradda si toos ah gacanta uguma heenin laakiin hadda waxaa lagu guuleystay marka hore in imiska lagu soo daro oo haddaba ay xogta socoto sidoo kale waxaa lagu guuleystay in la sameeyo non formal curriculumkii asagana hadda wuxuu marayaa akhrintii labaad insha Allah mar dhow waa la valid gareyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo drop outska waxaan rabaa inaan bayaaniyo xaqiiqatan oo aad uga xumahay gabdhuhu ku badan yahay gaar ahaan xilliyada dugsiga sare waxaan maalin dhaweed la soo xiray barnaamij gabdhaha lagu tababarayay waxyaabaha keenayna in gabdhaha la sii daba socdo tababarka loo sameeyo waxaa ka mid ah drop outska ku badnaa way jiraan gabdhaha wiilba drop outs way jiraan laakiin waxaa aad ugu badnaa gabdhaha markii la baarayna waxaa la ogaaday still dhiirigelintii in ay yar tahay saameynta ah in gabdhaha ay waxbarashada ku sii jiraanna ay sii baaba'ayso waxaa markaa qasab noqotay in gabdhihii waxbarashada lagu soo celiyo si formal si non informal ah saas darteeda waxaan xaqiiqatan xooga u saareynaa sanadkan gabdhaha ugu badan ee macallimiinta Soomaaliyeed ee payroll-ka ku jira inay noo soo baxaan waxaan si gaar ah shakhsiyan ula socdaa xogta macallimiinta soo apply gareynaysa inkastoo aan jecelahay marka hore hanaanka inaan sheegno laakiin waan sii taaban doonaa laba maalin ka hor waxaan ka walwalsanaa system macallimiinta waxay ku soo apply gareynayaan uu daah furan yahay qaadashada macallimiinta marka waxaan aad uga walwalsanaa oo guddiga qaadashada macallimiinta aan mar walba ka wareysanay gabdhihii xagee marayaan laakiin xalay waxaan ku farxay in gabdhaha soofa soo geliyay systemka codsiyadooda soo gudbistay CV-dooda soo dirsaday ay ku dhow yihiin 100 which means waa tiro taas ka qurux badanna waa heli doonaa wasiirka iyo maxaa la yiraahdaa dhammaan labada guddi ee baarlamaankana waxaan rajaynaynaa in si maxaa la yiraahdaa wada jir ah ay noogu codeeyaan tirada gabdhaha noo soo baxday inaan wada qaadano haddii aysan jirin shuruud kale ee ka mid ah shuruudaha macallimiinta ee celin doonta haddii Ilaahay yiraahdo waana ka shaqeynaynaa kormeerayaal bay soo qaaday senator Sareedo wasaaradda waxay leedahay wax la yiraahdo quality assurance markii hore sidaan markii u sheegayna haday muqaddamadeedii waxay ahayd in waxbarashadii dalka ay gacanta ugu jirtay hay'ado oo dawladda aysan gacanta ugu jirin waxaa naga horeeyay wasiirkii naga horeeyay aan ku amaanaynaa in ay ka shaqeeyeen hanaan ah in dawladda Soomaaliyeed ay yeelato kormeerayaal u gaar ah sidoo kale xog ururin ay wasaaraddu leedahayna la sameeyo sidaas awgeeda sanadkii hore dhamaadkiisa December waxaa la soo bandhigay school supervision-kii ugu horeeyay ee wasaaradda waxbarashada sameeyso yani kormeerkii guud ee ugu horeeyay ee wasaaradda waxbarashadu ay sameeyso oo dhammaan maamul goboleedyada gobol degmo tuulo intii iskuul uu ka furan yahay la tagay xaqiiqatan warbixinta soo baxday insha Allah waxaan idin kula wadaagi doonaa shirka weynaha qaran ee Soomaaliyeed maadaama maxaa la yiraahdaa aan u baahanahay shirkaas wax badan oo waxbarashada dalka ay xaaladda halka heerka hadda ay marayso inaan ku bayaanino laakiin waxbarashada warbixinta soo baxday wax badan oo hadda ay senator Sareedo ka sheekeynaysay iyo senator Deeqaba waa ku jiraan oo ma la fuliyay curriculumkii يعني أرداد السيد لوجو تلقى لما أقعدان
macalinka tababarka la siiyey waxyaabaha la baray ma ahan micnaheeda aqoontu yaqaan ma ahan methodology-ga psychosocial support-ku uu siinayo ardayda dhammaan ilaa 6 measurements uu lahaa report-ka intaba maxaa la yiraahdaa insha Allah waad arki doontaan laakiin waxaan taaganahay xaalad aan guudna ahayn in fair ah oo yani aan aadna u xumeyn waxyaabaha keenayna in meeshaas dhexdhexaadkan soo istaagnana midnaanshaha curriculumka iyo maxaa la yiraahdaa yaa sabab u ah marka wayna fiican tahay mar walba in la xisaabiyo horta halka ay waxbarashada dalku ay taagan tahay insha Allah iyadoo faahfaahsan oo doodeeda leh oo wax badan lehna shirkaasan maxaa la yiraahdaa idin kula wadaagi doonaan isugu imaan doono senator deeqa qaybinta macallimiinta maxaa la yiraahdaa waxaan u qaybinay dhammaan maamul goboleedyada koonfur galbeed Jubbaland Hirshabeelle Puntland iyo Galmudug iyo gobolka Banaadir maamul goboleedyada 400 aan siinay haddii loo fiiriyo waxbarashada caruurta Soomaaliyeed ee maamul goboleed heer maamul goboleed ama heer degmo xaqiiqatan way kala badan tahay oo aad iyo aad u kala badan tahay haddii aan u fiirinayna deegaanada maxaa la yiraahdaa ee hadda u baahan inay waxbarasho gaartana dee iska garan kartaan oo Galmudug iyo Hirshabeelle yaa qaadan lahaa mudnaanta u sareyso maadaama deegaano badan hadda la sii xoreeyay waliba arday 15 sano maskaxdooda wax kale lagu shubaayay ee joogaan u baahan hadda in macallin loo geeyo si maxaa la yiraahdaa ula qabsado waxbarashada dalka laakiin anagoo fiirinayna isku soo dhawaanshiyaha anagoo fiirinayna dhammaan in ay wada gaarto si haba yaraatee degmooyinka iyo gobolada dalkeena ayaan tiradaas ku saleynay dhammaan maamul goboleedyada min 400 siinay gobolka Banaadir oo ay ku badan yihiin barakacayaal ee ay center u ah dhammaan ummadii Soomaaliyeed iyada waxaan siinay 1,000 macallin 1,000 macallin macnaheedu ma ahan waxaan si gaar ah focuska u saareynay barakacayaasha iyo dadka baahiyaha gaarka ah qabo waa meesha kaliya hadda ku dhow maxaa la yiraahdaa in ay u diyaarsan tahay ardayda baahiyaha gaarka ah qabo iskuul inay u sameysay marka si macallimiinta aan u dareensiino ardayda baahiyaha gaarka ah qabo macallimiintooda aan kordhino waxaan u aragnay in tirada aan u badino gobolka national education policy-ga special needs-ka waa ay ka mid tahay sidoo kale waax inclusive education la dhaho ayay leedahay wasaaradda waxbarashada taasoo la shaqeysa ardayda baahiyaha gaarka ah qabto wax badan oo horumarin u baahan haddii ay tahay infrastructure haddii ay tahay pathways oo ardayda baahiyaha gaarka ah qabaan ee wasaaradda ula soo xiriiraan intaba waa laga shaqeynayaa oo maxaa la yiraahdaa hadda hawsheeda socotaa laakiin waxaa muhiim ah in il gaara lagu haayana ay tahay ardayda baahiyaha gaarka ah qaba maadaama ay ka duwan yihiin ardayda kale ee caadiga ah sidaas aawadeeda macallimiinta aan qaadan doono laftirkeedu waa ay ka mid yihiin macallimiin ardayda baahiyaha gaarka ah qaba wax bara ma lihin sign language oo ardayda dhagaha la sign language universal yaa wax lagu baraa laakiin waxaan ku guuleysanay in aan qorno ardayda indhaha la buugaagtooda waa fiicnaan leed inaad aragtaan buug iska yara xiran oo markaad saan tiraahdid un bareel ah oo faraha kaa mudmudaayo laakiin manhajkii Soomaaliyeed ah waxaan qornay hadda dugsi hoose Soomaha naga samee dugsiga sarana waa u socdaa dugsi hoose dhaxaan hadda qornay marka farxad gaar ah noo tahay in caruurteeni ugu yaraan ay dareemaan ayaga laftirkooda inay ka mid yihiin caruurta kale ee Soomaaliyeed intaasaan ku soo koobaya waxaan rabaa dhowr arrimood inaan taabto kow waxaa jira meelo ka fog gobolada iyo caasimadada oo ay degan yihiin dad xaq u leh inay wax bartaan ama kuwa hadda la xoreeyay ha ahaado ama kuwa nabad qabay ha ahaado isku tayana ma noqon karaan ardayga xamal wax ku bartay iyo kan jawhar ku bartay iyo kan cadala ku bartay isku tayo wax ma noqon karaan sidee ku gaarsiin kartaan dadkaas u simi kartaan oo xuquuqdooda loo simi karaa waa su'aal saddexda meelood kala jooga waa tusaale macnaha qodobka labaad waxaa tiraahdeen qodobka lixaad oo su'aalana uu ku qoran yahay 3,000 oo macallin baa laga hadlay 3,000 oo macallin wasiirku wuxuu yiri isteediyada waxaan u qaybinay min 400 kuna waxaan siinay xamal 3,000 halkaas ku dhantahay that means Soomaaliland waa ka maqan tahay meesha saasay u muuqataa Soomaaliya 18 gobol weeye haddaydan isteed ba u fiirin maxaa diiday 18 gobol oo Soomaaliya meel walba dad baa ku nool xuquuq leh in loo qaybiyo ko maxaa keenay gobolka Banaadir inuu laba isteed markii intay qaadan lahaayeen uu qaato haddana 200 oo kale oo zaa'id ah uu ku darsado waxaa raadkaas daba yaala
900 oo macallin baa bayrolka dowladda ku jira 600 oo kamid ah banaadir bay ka shaqeysaa isteediyadii oo dhan 200 baa ka shaqeeya dalka dhan maxamar baa u taqaanid iyo gobolka banaadir waa su'aal taasina waxaan jecel lahay si faahfaahsan in looga jawaabo annaga 18 gobol 20 milyan oo Soomaaliya intaasoo isteed baan wakiil u nahay meesha u fadhina waxaan rabnaa marka sida iyaga keen muuqata banaadir baa taqaanin kaliya laakiin waa idin sugaynaa jawaabteena waxaan rabaa inaan qodobka saddexaad ka dhigo dowladihii xukuumadihii iyo wasaaradihii hore oo idinka horreeyay in badan bay soo jireen waa fiicantihiin runtii meesha aad wax marinaysaan waana wax lagu qanci karo waliba si gaar ah waxaan ugu macalinayaa wasiirka dowladda guddigii baan ka mid ahaa miisaaniyadda ansixinayay waxaan go'aansanay inaan wasaaradna lacag ugu darin qof bay noogu timid iyadaana shukaansatay qof walba gaar bay ula istaagtay waa uga mahad celinayaa sababteeda iyo ilaahay oo qadaray bay 3 kun ku timid ayadaa ka shaqaysay laakiin waxaan go'aansanay wasiir markii golaha wasiirada la fadhiyay gacanta u soo taagay inaan waxba ugu darin waxaa marka aad noo beer la xawsaday 900 markii la timid ay tiri intaas kun baan u baahanahay waa uga mahad celinayaa runtii dadaalka ay samaysay wasiir Nuura waxaan rabnaa marka waxaa jiray marxiliga hadda uu wasiirkii hore joogay oo kale I think inuu goodaha ahaa iyaga iyo Puntland dhibaato ka dhex taagneed xagga shahaadooyinka walina hadirtan waa jirtaa arrintaas caqabadaas Puntland waxay isticmaashaa A iyo B iyo C bay dadka iskuulaadka ka soo baxa dugsiga sare shahaadada lagu soo siiya halkan kama jiraan ma u malaynayaa A iyo B iyo C A iyo B bay joogaan mise C baa lagu daray waxbay isku khilaafsan yihiin xarafka D inay isku khilaafsan yihiin baan u malaynayaa in badan oo ardada ka mid ah xaggana shahaado ka haysta halkaana waa looga diiday in looga tasdiiqiyo shahaadadiisii oo loo ogolaado meeshaas ardadii in badan oo ka mid ah fursad ay kaga baxeen waayo shahaadadii xagga ahaydna uu haystaa tanna waa loo diiday jaamacad ma aadi karo waalidkiina waa ku dhiban yahay taasna waa su'aal bal waxa aad arrintaas meesha ay idiin marayso iyadoo dhibaato ka taagan tahay baan ogaa arrintaas arrin siyaasadeed bay ahayd oo la isla ogyahay waxay saamaysay ardadii wax saxana ma ahayn arrintaasi wixii siyaasadda isku haya waa gaarkeeda innaga waxaan ka hadlaynaa lifekii iyo noloshii waan ka hadlaynaa iyo mustaqbalka ilmaheena waxaan u soo noqonayaa dhinaca mashaariicda agaasimihii mashaariicda ka hadlay wuxuu yidhi 35 hadda markaan tusaale u soo qaato Russia ka yimid waxaan mudnaanta koowaad siinay dalladda jaamacadaha midowga jaamacadaha iyo jaamacadda wixii soo harayna gobolada ku kala turtuur fair maaha waxaas saa iga muuqanaysay weeye dalku waa banaadir wixii soo harharay baa meelaha lagu kala turtuur sax maaha mas-uultooyinka ka dhaa dalka si fair in wax loogu qaybsho oo 18 gobol oo Soomaaliya lagu celiyo haddaydan ku celinayn in stateska loo qaybsho haddaydan yeelin xanuunkan baaso ina ku dhacayo 4.5 ka intaad yeeli kartaan mid uu ma keeni kartaan waa mahadsantihiin waxaad moodaa su'aalaha inay si yara kululaanaya waana qayb ka mid ah isla xisaabtanka hay'adaha dawladda oo haddii aan isla xisaabtan jirin iyo wax isweydiin qof walba xafiisku joogo siduu rabo ka yeeli lahaa intaa kadib waxaan rabaa ma badinayo 3 su'aalood bas baan rabaa inaan weydiiyo wasaaradda waxbarashada wasiirka iyo tiimkiisa waa marka koowaad wasiirku wuxuu sheegay in 25% dadka Soomaalida carruurta Soomaaliyeed wax bartaan runtii waa murugo waxa aad xun oo laga naxo maanta dunidu halkay marayso iyana halka marayn laakiin dhinaca kale baan ka sii eegayaa waxay tahay 25 quality hadday soo bixi lahaayeen even wax fiican bay noqon lahayd laakiin nasiib darradu waxay tahay 25 ka soo baxa xitaa ma naqaano waxay soo barteen waxaan tusaale soo qaadanayaa ardaydii 60maadkii 50maadkii iskuullada ka soo baxday marka loo eego populationka iyo tirada guud ee Soomaalida 2% ama 1% bay ahaayeen dadka 50kii 60kii wax baran jiray laakiin qofka ka soo baxa dunida bay isaga qabsan jiray meeshu tagaba isaga wax laga weydiin jiray waana 2% ama 1% nasiib darrada maanta waxay tahay iyadoo tiradiina yar tahay tayadiina inay meesha ka baxdo marka waxaan rabay inaan weydiiyo tiimka tayada
gartay macallimiin hala tababaro waxa la sameeyo ajandan priority-ga mudnaanta halkay kaga jirtaa wasaaradda tayada waxbarashada weliba waxaa gaar noo sii khusaysa waxbarashada dawliga waxaa laga sheegayay wadamada ka mid ah inuu ruwaando yahay dadku caruurtooda hadda iskuullada gaarka loo leeyahay barefadka way kala baxaanoo iskuullada dowladda ay geeyaan sababta iskuulka dowladda ayaa ka tayo badan ka barefadka marka wasaaradda qof dukaan furtay ruwaando soo maaha exactly marka qof dukaan leh iyo dukaankiisa waa in lagu kormeero oo eego manhajkiisa iyo waxaas laakiin mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay iskuullada dawliga iyo tayadooda iyo marka taa maxaa qorshe kow idinka yaala halkayse kaga jirtaa mudnaanta su-aasha labaad waa waxbarashada asaasiga markaan ka hadlayo su-aasha labaad waa tacliinta sare inkastoo agaasimihii joogo haddana waxaan dareemaynaa tacliinta sare maalin dhaweedna golaha waa ka sheegay tacliinta sare dalka xogogaalna waanu nahay oo wasiirku ogyahay waa in badan baan ka soo shaqeeyey tacliinta sare aad bay u baaba'santahay dalku jaamacado mid iyo laba saddex baad moodaa magaalada iska da isteediyada ee magaalada muqdisho keliya meeqay jaamacadu maraya anagaas 87 70 xamar keliya jaamacada xamar ku yaala waxay la u dhigmaan 15 wadan oo afrikaan ah jaamacadaha ku yaal marka la isu geeyo iyo jaamacadaha xamar ku yaal baa isku mid ah waxaa laga yaabaa inay yara adkaato saas halkan waxaa igu qoran Chad wadanka la yidhahdo hal jaamacad buu leeyahay oo dawli ah iyo 3 private ah Gambia 3 jaamacadood buu leeyahay Burundi 10 South Sudan 8 Niger 5 Sierra Leone 20 5 iyo 10 dal haddaan isu geyno jaamacadahooda iyo xamar oo keliya isku mid ah jaamacadaha Soomaaliya haddii la isu geeyana ilaa 30 dal 20 dal Afrikaan laga yaabaa 120 marka waxaan faraha badan maxaa idinka qorshe ah wasiiradii hore wasiir waa ku dhiiri waaye arrintaa inay wax ka qabtaan marka ustaad Faarax Cabdilqaadir waa arrintaa waa weydiinaynaa sidaasay iska ahaanaysaa oo caruurteena albaab la furay 4 maqsin ah shahaado laga soo siinaya mise lugooyada caruurta la lugooynayo hal baan u haynaa su-aasheeda saddexaad waa su-aal qowmiya wadaniya sanadkii 1991 1991 iskuullada dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya waaga la oran jiray hal iskuul oo magac carbeed leh ku oran jiray laba iskuul baa ku oran jiray iskuulka Jamaal Cabdi Naasir iyo iskuulka Umar bin Khattab atiguna hargeysa ku oran jiray iyo sheekh Suufi ma ahayn magac carbeed nin sheekh oo magaalada أهل البلد بوها أهل البلد كي مقالة وها شيخ صوفي نين عربيد ما هي لولا اسكول با مقع عربي نين صومالي هو صدح يتوان كله قلح ها سخاوديني معلن شامعي وضر لي يقاوم ويوها القميانة صدح يتوان وكتب سنابه ها حب رجال باكا لولا اسكول با وح مقع عربيد له شمال عبد الناصر ناس سببت له بحيه وقررنا عمر بن الخطاب نوع من المؤمنين كي ولا قررنا لما كنا وعطني صدح وحن رادنا يسكول مقع صوماليات لي هذا صوت إنه وهلينا أنت كلام ومقع يحرد مركا وأقبل لي مقع يدا صحابتي وأقبل لي مقع يدا خلفاء الراشدين وأقبل لي مقع يدي حتى تابعين وأقبل لي مقع يدا إمامية وأقبل لي أفرت إمام بأفر سكول بالله كلا يرادا بيد حتى عدادك يا الله كلا يرادا إمام مالك بيد كلو كيا الله حقنا أبو حنيفة هل كان يشيك وابري مركا وضع أقبل لي إمام الشافعي وعام با أنت أصدقن وأقول لها يا دواب الدينية لكن أسيروا مقعية أنا عروت اللي قتها قرنين بالك هي مادة ولا يقول لي وغيرت وانا قرنين وأنا سياسيين أنا قرنين
baa carruurtayadii iskuulladaasay ka soo baxaan ma naqaan tusaale yar jaabir bin hayaan nin la yidhahdaa jira halka buu ku yaalla 4 jardiino nin baa weydiiyey wuxuu ku war jaabir bin hayaan waa qolaba waa ayuu wuxuu ku ninkaas inuu shiico yahay baan u malay waan honestly waaba google gareeyo waa filasuuf shiica waxaa ku yaalla waa ibnu khusayma waa alnasr waa المعرفة مياه الفجري الفرج المنتدى يعني إلا بوصاصو إلا بورمي إلا حمر إلا كسمايو وصاصة يقول قرية وحيقول أشيب بدنا سكولك بلدوينة كويا لأحد ليلة أحد ماشي سحابة ده بقول له إيه حتى الشخص ما علش معاه حد الله بحله يا أما ده دتك هذا العضو كلا كيمي ددواوي باكيمي عبد الله عيسى كيمي يرسس لكن marka uu siiro bal arrintaasna hatta iskuul usaaba leeyahdaan arkay wuu jiraa soo wada jir sare tadaamu baa loo bixiyay dhama yaasin cartan waxa loo bixiyay anwaar marka bal taana waa su'aal qowmiye Soomaaliyeed goorma lagu soo celinayaa iskuuladeeda waxaan ku dambaysiinayaa su'aal kale oo iyaduna regional waa ka soo yara degayaa tii kale scholarship-yada muddo dheer looma sinayn maamaha Soomaaliyeed oo la yiraahdo dheriga qofka ugu dhow baa lafta kala baxa ayaa lagu apply gareyn jiray bal taasna waxa uu sir faarax iyo tiimkiisa bal waxay idin ka meel yaalla sidii un bay iskaga sii soconaysaa mise ardayda Soomaaliyeed cadaalad way heli intaasaan rabaa inaan video mahadsantiin aadan u ogolaa inaan la xisaabtamo laakiin waxayna lagu xisaabtamaa in loo dhiibaan rabnaa horta markooda marka hadaan waxba naloo dhiibin dukaankii oo aan wax badeeca la geynin shati bas aan loo dhiibay marka haddii la badeecadii meeqa gadantay maxay u gadmi waysay faa'iido maxaa loo keeni waayay shareholderskii maxaa wixii loo siin waayay haddii warnimayahu meesha ra'sumaalba ma yaalee maxaa faa'iido la qaybinayaaba horta imaanaysa runtii miisaaniyadeena waxbarashada aad iyo aad u hooseysa dadaalka aad muujiseen hadda intan ku soo gaartay oo hadda la iswarsanayo oo la isweydiinaya aadana runtii uga mahadcelinay xubnaha labada gole oo aad idinku ka mid tihiin dadaalka aad sameyseen waana adkeydba in dadka lagu qanciyo oo la yiraahdo waxbarashada wax loo goynaya ama wax loo kordhinaya runtii aaday iyo adkeyd laakiin garashadiina ayay ku timid waxaan ka bilaabayaa arrinta ku saabsan Puntland iyo shahaadooyinka horta mushkilad la yiraahdo systemka imtixaanada kala duwan oo jirto ma jirto mushkilad siyaasadeed iyo aragti bay ahayd طبعا wasiirkii naga horeeyay wuu xaliyay wuxuu ku xaliyay in ardayda Puntland shahaado halka imtixaanka looga qaado shahaadada ay wataan in loo bedelo oo tii qaranka la siiyo yani halkaasna wali sidaas u socda marka ma jirto unless ardaygaas uusan ka diiwaan gashanayn Puntland oo shahaadadu wata aysan shahaado sax ahayn wax caqabada oo shahaadada dhankeeda oo halkan uu kala kulmaayo ma jirto laakiin mushkilada kale way iska sii jirjiraan oo ku saabsan xiriiradii waxaas hadda de maanta meesheedii ma ahan laakiin mushkilad shahaado la yiraahdo dhankaas kama jirto scholarship oo aan arinta kale aan rabay inaan u soo socdo waxa waaye horta scholarshipsku waxay yimaadaan aad bay u yar yihiin meelaha ay waxa badan ka yimaadaan oo Ethiopia iyo meelaha ay kamid yihiin marka qaar ama iyagaaba soo qaybiya oo dawladahaas soo qaybiyo oo gobolada u dira ama halkan baa laga qaybiya marka la qaybinayana deegaanadii gobolada waa la gaarsiiyaa guud ahaan haday wax yar yihiin marka meesha ay wax ka imaanayaan meeshaas weeye oo aanay jirin mechanism ama hab iyo qorshe lagu qaybiyo tusaale ahaan anagu hadda way inaga horeysay Ethiopia iyo Masar iyo India iyo waxaas intaanan imaanin baa yaa la qaybiyay waxaan nimaadnay markaanu nimaadnay China scholarship yaa keentay China scholarship-ka ay keentay waxaanu dhahnay imtixaanka dawladda ay qaaday sanadkii
annagu naga horreeyey ee imtixaanka aynu soo dejinnay 10kii arday oo ugu horreysay maadaama scholarshipku uu yahay full 10kaas arday oo Soomaaliyeed la siiyay 2 arday ayaa cudur daaratay oo qofna jiray dalka kama tagay qofna meel kale aaday 8 kale waa 8 arday ee ugu horreysay ayaa la siiyay waxaa dhici karto inay 2 isku gobol yihiin ama xataa isku reer yihiin annagu waxba nagama gelin oo nagama waxayn qofkii u eegaya qaybiska dhinac wuxuu ka fiirinayaa hadii wixii la qaybinayo sida caadigeena ah qofkii dhinac wuxuu ka fiirinayaa beel dhinac wuxuu ka fiirinayaa gobol dhinac wuxuu ka fiirinayaa iskuul waxa laga yaabaa kuwa aniga hadda ma xusuusto laakiin ugu sareeyay inay 2 kamid iskuul yihiin laga yaabaa ama isku degmo yihiin ama isku gobol yihiin ama isku state yihiin ama saas oo kale marka waa qiyaas aan garan karno dadka 30 iyo dhowrka kun ee imtixaanka laga qaaday 10kii ugu horreysay waxaasay mudan yihiin in la yiraahdo taas baana yaan ku salayn waxa soo hartay waxbarashada sare ee master degree la sameeyo master degree marka la sameeyo iyo PhD ga ardaygu uu aadayo koow horta waxa la aqoonsan yahay jaamacad la aqoonsan yahay ardayga inuu ka yimaado jaamacadaha la aqoonsan yahay marka ama waa jaamacadda ummadda oo dawladdu ay leedahay jaamacadda ummadda ee dawladdu ay leedahay hay'adaha qaar ama dawladaha qaar Talyaaniga uu kamid yahay jaamacadda ummadayba ku shardiyaan scholarship-ka ay siinayaan jaamacad kale iyo meel kale jirta iyo shaqadooda ma jaamacadda ay rabaan inay kobciyaan oo ay kordhiyaan waxaa kaloo jira marka urur la yiraahdo ururka jaamacadaha Soomaaliyeed la yiraahdo oo ay ku jiraan 50 jaamacadooda ku jirto oo ay ku jiraan kuwa isteediyada ka jiro waa waxay isla og yihiin hoggaan ay doorteen ay leeyihiin maamul ay leeyihiin wax bay leeyihiin marka anagu jaamacad dadka oo lama xiriiri karno waxa aan haynana jaamacadba uma dhamaba mesela 5 scholarship aad haysaa waxaad rabtaa dad master iyo PhD inay galaan haddee Soomaali weyn anagu inta hadda shaacino qof kasta meeshu joogo ka soo dalbado effortiga iyo miisaaniyada kharashka u baahanta in waxa lagu sameeyo awoodeeda ma hayno dan xagee u dhow jaamacadda ummadda iyo midowga jaamacadaha maalin 2 scholarship aan siinay midowga jaamacadaha oo China labo jaamacadihii bay la xiriireen dadku ayaga naftooda madax xanuunka ku dhacayo 50 iyo dhowr jaamacadooda xubin ka ah sidee labo ay u siinayaan oo ay u sameynayaan marka waqti dheer bay ka qaadatay waa haddana si isaga raali yihiin ayay keeneen oo ay jaamacadda ummaddu sidaas oo kale ardaydeena ka soo baxda qabiil kastay leeyihiin sida ay u kala sareeyaan ama kulliyadaha ugu kala muhiimsan yihiin dadkaas hadhow inay jaamacadda wax ka dhigaan ayaa loogu talagalay waa ka sii dadaalaa intaa ka badan oo waxaan dhahnaa war haddana state-ka maxaa kaloo inoo yaalo state-yadu laba ha loo diro state-ku ha keeno qaylaa noo timaada state-ka see lagu qaybiyo ma 2 arday buu state-ku uu imtixaan ooga qaadaya dadka oo dhan oo uu ku sameyn karaa ma kuma sameyn kara isaga baa dadaala oo u soo diro horta wuxuu saasay ay ku yimaadaan annagu hadda waxaanu diyaarinaynaa habraac iyo guddi qaran oo hawshaas ka shaqeeya habraacaas iyo guddigaas wuxuu fududeyn doonaa habraac la yaqaano in laga gaaro marka waa rajaynaynaa maalmaha soo socdo inaynu ku guuleysano inaynu midkaas sameyno inta ka horeyso aad waxaan iskugu daynay dacayadaha meelaha lagu faafiyo inaanay waxba ka suuragelin horta koow waa la gataa iyo waa la qaraabo kiilaa iyo waa la sameeyaa iyo inaanay waxaas aanay dhicin annagu ma ogin cidda kaloon u dhiibin inay qaraabo kiisho dee waana dad Soomaaliyeed hadda eed iyo tuhun gaara oo aan u qabno haba yaraatee ma jirto waxaa runtii aniga aan filayay inaad igala hadashaan dadkan aan rabay inay igala hadlaan aad waxa u tiro badan dad scholarship inta la siiyo aan ka faa'iideysan oo ka tahriiba oo dhaca oo la socon waaya dadkaasna badankood scholarship-ka waxay ku heleen cadaadis
iyo dabagal iyo galgal ka yimaaday dad kaloo awood u leh in scholarship-ka la siiyo dadkaas ka yimaaday mar qaar hadda waxa ay qabatay inaan maalin waxaan waddan baan la hadlay wadamada ka mida waxaan idhi hala ii soo qoro dadkii scholarship-ka la siiyey 5 sano la soo dhaafay imisaa ka joogto waxbarasho ku jirto ama waxbarashadii inta gashay meel fiican ka joogto 30% way noqon waayeen waa la hayaa dadkii waxbarashada la siiyey kuwii isaga tagay waa la hayaa kuwii waxa laga in la heli karo dadkii xataa sababtu ahay dadkaas in oo scholarship-ka la siiyo marka insha Allah habraac baan samaynaynaa waxaas wax badan oo kamid ah inaga waxis marka macnaheedu ma aha scholarship sida senator Gelle senator Ugaas uu leeyahay in xamar lagu qaybiyo ama reer xamar la siiyo ama saas oo kale la siiyo ma ahan arinta oo ku saabsan macallimiinta runtii tiradooda aad ay u yartay jiilaalkuna Soomaalidu waxay tiradaa cambo oo wax bida kuna xamar waxba uma aha 400 isteed waxba uma aha waxa ay meel ay laakiin waa symbolic waa asaas si kastoo loo qaybiyana su'aaluna ka imaan lahaydo laakiin waxay ku wanaagsan tahay waa qayb aanu isla garanay annaga iyo wasiiradii waxbarashada ee dawlad goboleedyada oo stateski waxaas iyo mas'uulka ah طبعا Somaliland kuma jirto hadee Somaliland dawladda Soomaaliya kama shaqeyso horta waxaan waa shaqaale dawladeed waay oo dawladda Soomaaliya ay leedahay shaqaale rayidada dawladda Soomaaliya ciidan ay leedahay diblomaasiyiin ay leedahay Somaliland kama shaqeeyaan oo kama tirsan haddii su'aashu ay tahay in la isweydiinayo dad deegaanadaas degan shaqo ma helayaan way u furan tahay shaqada ardaygeena jooga Boorama macallinkeena jooga Boorama haddii uu soo codsado oo uu yiraahdo waxaan rabaa inaan foomka lagu codsanayo waxaa ku qoran meesha uu doonayo inuu ka shaqeeyo gobolka uu doonayo inuu ka shaqeeyo oo uu yiraahdo waxaan doonayaa inaan ka shaqeeyo Shabeellada Hoose oo loogu yeerayaa imtixaanku galaya haddii shahaadooyinkiisa waxay sax yihiin haddii uu ku guuleysto Shabeellada Hoose uu ka shaqeynayo reer hebel ma tihid iyo deegaankan umaad dhalan iyo meeshan kuma noolaan jirin iyo yaa ku keenay iyo waxaas haba yaraatee ma jirto waa laga yaabaa hadhow haddii dadka tiradooda la istiriyo ama Soomaalida is haybsato dad aanan la filaynin inay u badan karaan dadka deegaanka mucayanka ka shaqeynaya markaan hadda aan gobolada iyo wareysto oo aan weydiiyo macallimiinta ka shaqeyso dad badan waxay ii sheegaan macallimiin ka timaaday awdal inay joogaan cadaado iyo ay joogaan iyo Garbaharey inay joogaan aqoontooda iyo xirfadooda geysay macallimiintana macallinimada iyo shaqadeedana inaan ka saarnaan rabnaa heerka hoose ee dadkeena ay gaareen maxaa yeelay waa kuwa aan ku aamini lahayn caruurteena aanu ku aamini lahayn insha Allah markii aan tiro badan oo kumanaan ah ay na soo gaarto ayaan de rajaynaynaa in dadkeenu ay wax wada gaaraan waxaa ii haray arrinta quality-ga runtii quality-gu dee waa wax iska dhib badan meel kastoo adduunyada uu ku dhib badan yahay laakiin department baan leenahay quality ka shaqeyso waxay leeyihiin halbeegay dejiyaan kormeeray sameeyaan waxbay sameeyaan marka waxaas wax sahlan ma arrinta ku saabsan tacliinta sare iyo waxa uu senatorka ku tilmaamay qolalka iyo daaqadaha la furanayo dabcan goobjoogaan usoo ahayn laba waxbaa runtii sabab u ah mid ka mid ah waxaa waaye dad baa shaqo ka dhiganayo oo howlo ka dhiganayo oo saasoo kale ay shaqo u tahay midna waxaa weeye dadka gelaya naftooda taas unbaa u sahlan dugsi saruu ka baxay meelu aadan male kaasaa u sahlan demandigaasay yay ka faa'iidayaan waxaa jira barnaamij aanu dhowaan horgeyn doono golaha wasiirada oo la yiraahdo dib u habeynta tacliinta sare la yiraahdo insha Allah tacaala kaas ayaa wax badan oo waxyaabaha loo baahan yahay ee lagu qeexaya excellency Soomaali baan nahay طبعا dugsiyo badan oo aad tilmaamaysid oo hadda magacyadooda aad sheegayso la sameeyay ama dad aanu dhaqan iyo diin wadaagno ayay ka soo jeedaan
magacyadaas sida aad tilmaantay oo kaleeto oo hadda dad qariib nagu ah ma aha oo hadda ama gaalo ah ama sinji naga duwan ma aha haddii waa wataan isku weyn anagu inaanu carab nahay oo muslim nahay oo wixii nahay dadka horta inagama foga iskuuladana iskuulo private oo dad inta badan ay maalgeliyaan oo ay samaystaan waaye laakiin Jaabir ibn Xayaan de waa nin de kiimiyaay ah chemistry-ga marka malaha macallin chemistry-ga dhigi jiray oo looga de un aad u jeclaa Jaabir ibn Xayaan iskuul furta markaasuu u bixiyay Jaabir ibn Xayaan buu u bixiyay laakiin siyaasad hadda dawladda uga degsan ma jirto laakiin dugsiyada dawladda ay leedahay oo dawladdu ay maalgeliso oo dawladdu ay ka shaqeyso siyaasad cad ay ka yeelan doontaa waxyaabahaas maxay qaarkood waxa ay la xiriiraan taariikhdeena iyo halgankeena iyo qiyamkeena la xiriiraan sida ay tahayna wali waa buuxan kuwa badan oo magaceena iyo waa ay jiraan bulshaduna runtii waxyaaba very very critical imaan doona hadda qaarkood aan noo muuqanin dad aanay dadka qaar jeclayn bay dadka qaar jecel yihiin markaasay meel muuqaal iyo magac la ugu magac dari doonaan dadka qaarna waa diidi doonaan dadka qaarna waa sameyn doonaan marka waxyaabahaas in siyaasad laga yeesho waa fiican tahay waxaa soo socda haddii ilaahay yiraahdo shirweyne la yiraahdo shirweynaha waxbarashada qaranka oo bisha Maarso 13 ilaa 17 aan doonayna inaynu qabanno haddii ilaahay yiraahdo shirkaas waxaa looga doodi doonaa waxyaabo badan oo la xiriira waxbarashadeena tayadeeda maamulkeeda siyaasadeeda maalgelinteeda hadafkeeda aragtideeda meeshay u jeedo waxaan rajaynayaa insha Allah haddii ilaahay yiraahdo inaad ka soo qayb gashaan si aad wax badan ugu biirisaan oo ra'yiga loo qaato dabcan hawsha waxbarashadu sidaan idin sheegay waa hawl jid dheer loo rabo in loo qaado waxaan isku daynaa annaga inaan asaaska u dhigno waxaan marka waa asaas bal asaaskaas jid loo mari karo shalay waxaan la kulmay dad ka badan 1,000 qof oo tiyaatarka yimaaday waxaan dhahay waxaad su'aalo qabtaan weydiiye marka tan igu daran runtii waxay ahayd waxaan aad noo sheegaysa ee wanaagsan habraacaas la marayaa form baa la soo buuxinayaa online waaye ugu dambeyntiisa oo dadka ma shaqayn doonaan waxaas inay sidaas u dhacayaan seen ku aamini karnaa de runtii waa u garaabayaa ilmaheena iyo dhallinyaradeena iyo dadkeena iyo sababtoo ah nidaam cadaaladeed oo qofka intuu wax dalbado uu ku soo heli karo noloshooda maanay soo arag waxay yaqaaneen ayaa taqaana waxay yaqaaneen reer hebelaa tahay waxay yaqaaneen gobol hebelaa ka timid waxay yaqaaneen qof hebelaa gacanta ku haayo oo saas loo geeyay adinkana de telefoonadiina saaka kaliya inta idin soo wacday waa garan karaayo oo ama CV la idin soo diray iyo saas oo kale la idin yeelay marka inaan waxaan rajaynayaa aadna garab gashaan oo nagu garab gashaan bal wax system ah oo la isla wada garanayo oo fiican in la sameeyo hadduu khalal ka soo baxo ama systemka uu ka soo baxo ama dadkooda inaga aan ka mid nahay ay ka soo baxaanna in lagala xisaabtamo la yiraahdo sidaan kaama yeelino kaama aqbalayna la yiraahdo ayaan rajaynaya ma ogi ugaas inaan ka wada jawaabay waxbarashada meelaha fogfog iyo meelaha dhow yani xafiiskanaga meelaan ka fogeyn ayaa waxaa ku nool barakacayaal 30 sano ka badan degan oo 100% ilmahooda aan wax waxbarasho haysan hadee mid fogna saa tilmaamaysa waa jira mid dhow iyo mid fog baa xaaladeeno xaalad ay quruxsan tahay ma helitaanka waxbarashada meesha ay ugu yartahay percentage ahaan marka la yiraahdo inay muqdisho tahaan u maleynaayo banaadir ay tahay population-ka tirada badan ay jooga halkaas fursadda waxbarashada heli karaan aad u yar yahay marka loo fiiriyo population kale oo meel kale joogo marka inaad ku baraarugsan tihiin bal wixii anaga aan helana waa isku dayeynaa inaan sameeyo waxaan idinka rajaynayaa dee madaxaad tihiin arrimaha ku saabsan waxbarashada inaad u advocate garaysaan yacni golayaasha aad joogtaan meelaha aad ka hadlaysaan media
iyo dadka iyo marka allaha ka hadlaysaan arrinta waxbarashada inaad doodeeda marka doodiina mar kastaba ay ku jirto meeshii kastoo go-aan lagu gaarayana ay arrinta waxbarashada taalo haddii un qof Soomaali wax la baro deegaankuu doonaba ha joogee yani ra-iisul bay u tahay dadka Soomaalida u tahay celinayaa jawaabihii ugu badnaa wasiirka ayaa ka hadlay laakiin waxaan rabaa ugaaska iyo dubbe inaan wax yar ka iraahdo midaan wax qaybsiga iyo sida uu dhigay ugaaska waa in la xisaabtamo meesha ku jirta balse annaga markaan wax ka qiimeynay taladii aan goynay saasaan ka dhignay dalkan waa 77 ilaa hadda soo burburayay wax qaybsiga 4.5 ka sheegtay iyo sida loo gudbi karana waa in dadkii si hoos loo dhaadhiciyo dalkan dastuurkiisa waa qab qoraal ku jira wali lama tafatirin oo looma codeynin maamulada dhan ama ha noqoto heer federaal ama maamul goboleed kor ka soo bilaabaya waxa fiicnaan leh hoos inuu ka soo askumo kansaladii iyo kulli deegaankii saaseen ku imaan karaan wixii cadaalad ah laakiin wixii aan suubinay in ay reeraho dhan 4.5 ka dhex muuqdaan qofka aqoontiisa ku xiranta soo sheegay Soomaaliland ama ha joogo ama Puntland ha joogo ama koonfurta ha joogo qofku meeshuu rabo ka xariisan karaa waxa laga yaabaa in hal jifo hoose ee wada qaadato 400 macallin iyo ka badan marka in yaraan ka gudbeen hadda saas formality 400 saasaan u niray waxa laga yaabaa in qolo dulmaneed ama qolo waxbarashada ku fiicneed ilaa ardayga markii jaamacadda dal dhameeyay qaar mediciinki waxaan barto qolooyinkii waxbarashadooda ahayd waxbarashada inay sanadkan ay faa'iido waa ganacsigana waa noocyadaas oo kale waana dadaaleynaa wixii toosin ahna waa soo dhaweynaa in nala toosiyo qola haday mas'uuliyad hayso wax waa ka dhacayaan taas dhankaasaan ka leeyahay midaan kale oo saaxiibkay dubbe waa la qabaa magacyadan carbeed waayadanba dalka soo u burburay aad u soo badanayay laakiin iskuul magac Soomaaliya in laga qaado hadda magac kale loo bixiyo sidii dadkii la sheego kale ama Yaasiin artan iyo magacyadaas waa weyn oo dadkii halgamaaga ama dadkan u soo dhintay magacyadooda la tiro hadda magac kale oo carbeed lagu qoro aniga ma qaba laakiin maadaama aan dad islaam nahay qofkii cidii magac carbeed la baxays iskuul cusub inay u baxdo meel kale ay dhisato waa soo dhaweynaya waxyaabaha markii dagaalada dhaceen qarmeen ka mid tahay sababtoo qolooyinka hadda xaq jirka ah markuu dagaalka sokay u dhacay kadib magacyadaasi ku soo dhunteen oo dalka wax hadda dhibaatada u geystay ayaga ugu tiro badan waa dareenkaasna waa kula qabaa professor annagoo dhanaan isla toosino ay tahay hadduu rabbi idmo waana dadaalena gacmo wada jiray wax ku gooyaan idinkoo offside-ka annagoo wasaaradda iyo teamka haddaan isku duubnaano wax badan waa xalin karnaa saasaan dhilahaa soo dhawaada salaam aniga jawaabtaydii oo dhan aqoonta oo dadkaan leeyihiin aadaboosh runta haddii la sheego wasiirka shaqada ee shaqaalaha noo yimid kulliiba soo cabiraya iga tegi wasiirka kale caafimaadkaa noo yimid asagana cabanayo iga tegi shaqaalaha rayidkaa noo yimid aniga kaas waxaan ku sheego iyo waxay ma ogi 15 ay nagu yimid wixii haddaan su-aalnay qaarkood waaba nagu oriyeenba su-aalahaan qabnaana keegno oo dadka aan keelayn anigu waxbarashada dugsiyaalka qaar badan inay liitaan waa aragnay waxa u sababana nin walba gurigu furto guri cidihiina mid walba midkuu ka raqiisaysan yahay
ay gelayaan oo tabartii halahaas hadda wasaaraddu inay iskoollo badan oo dowladdu leedahay ay furayso waa sheegeen kulleyba wasiirkana inuu ka rumey doono iyo wasaaraddiisana waa cindiqaadsana inta la weysan yahana waa ogahay inay dhaqaalo xumo tahay horta wasaaradda intaas aan leh waxaa soo hira senatarka saaxiibkay ah oo bidixdayda fadhiyo uma jawaabayo oo xumaan uu jawaabi maaha laakiin hadda ka hor tookadi ka horeysa aan waxaan u doodahay gobolkan banaadir didad xaggood ayay ahayd waxay tiri adiga yaad gobolkan ka leedahay reer puntlanday ahayd qofna ka malihiya haddaanu qof ka lahayn reerkiiyaga dad badanna inay meel fiican maraanaan rabahayn oo dadkoor baan u doodow hayaa halayga dad badnaado meel fiican ha maraano halaas kaliya waa hadda senatarkayga dadkan waa la kor degan yahay dhaqaalahoodana iskoolo kale waxuu nagu baxaa anaga wixii la soo qaado oo deegaankooda laga qaado anagou nagu baxaa asaga waa ku jiraa marka inaan dad dhaqaalahooda nagu baxo oon wax kale helin an idhaah waxay wax u badsadeen waxaygana kaligayaa cunaa iskooladana kaligayaa furaha dekadana waa qabaa waxna dhiibi maa waxna haleela celsho intaas haddii loo adkaysiyow haayo inuu wax yar oo lana tiro badan yahay tiradana uu wadiisa ka leeyahay wiilka xagga ka yimaadno oo iskooladan dhigahayo aan la midabtan koorin kii xagga ka tagana warkiisa la cajilaayo ooban ku noolaa karin senatarku siduu isu saarayo ma u jawaabo hayo laakiin xoogaa wixii uun qalbigayga ku jiro oy ila taha waayo marka maya waa iidi waaye waa iidi waxbarashadiyaan ka hadloo hayo wax kale kama hadloo hayo waxbarashadii sida marka anuu u jawaabayn halahaas xoogaa waa isla leenaha waxbarashadan wasaaradihii guddoomiyihii ugu celin wasaaradihii waa laga wada tirsan yahay wasaarad gooniyana waa leedahay meel walba wasaaradaha meel kale leedahay mushaarkii waxaa siiso canshuurtoodii waxay qaataan kuwa intana waxay qaadataa canshuurta inta xildhibaano waa wada leena qaarna xagga ay ku leeyihiin kale waxoodana waa qaataan wixii intii joogana intay ka qaataan xisaab horta yaan ugula soo noolaynin meel halleeska dhigo haddaan anagu waxay fiicneed inaan iyo qolkayna xiranno aan horta isku xog waranno oon iswar baranno anakaan iswar aqoonin waa isku cusubnahay taasna saasaan ka leh wasaaraddana anigu ma ammaanan jirin wasaarada laakiin
tabar uun ku yar ma ahane aniga hadda aad kaluma sheego ma arko waana soo gudbiyey hadda aan kusoo noqdo wixii kale dhan waa la sheegay waa su-aasha tayada ee jaamacadaha oo hadda wasiirka daaqarrawad ka dhawaajiyey maxaa yeelay aniga waxaan ahay insider aan ahay jaamacadaha waa dhexataa UNESCO waxay samaysay yacni arrimahaas ayay dabagelaysay oo yacni mar qiimeyn ay ku sameynaysay saa la socotaan bahdiina waxbarashada jaamacad yani magaca la siinaayo balse nuxur ahaan aan jaamacad ahayn taasna waxay keenaysaa kaadirka ay soo saarayso aqoon-yahanka ah oo weliba ay ku jiraan qaarkood faculty of medicine ama engineering ama science-kii kale oo muhiimka u leh yacni laba khasaaraba waa keenaysaa mar waa mar qiimihii UNESCO indhaha ay ku haysay tayada waxbarasho ee jaamacadeen bacdamaa waddan dumay collapse ku dhacay always walwal laga qabo soo kabashadiisa ayay waxay ku sameynaysaa ta'thiir ama saameyn tan kale haddee kaadirkii soo bixi lahaa ama dhakhtarkii soo bixi lahaa ama injineerkii soo bixi lahaa waxaa soo baxayo dhakhtar low profile ah oo xataa aanan infirmieri ahayn aan noqonayn waa dhaweyta waxaan diskas garaynaynaa aniga farnacab kuma taagine senator xaaji muuse waxaan ka hadlaynay jaamacadaha Nairobi iyo jaamacadaheenna aan ka hadlaynay marka arrimahaasoo kala marka imaanaya markaasa waxaan iri xaaji waa runta wuxuu yidhi jaamacadaha oo xagga ka hadlayay runtii sida controolkooda iyo tayadooda waxaan iri jaamacadaheenna sidii collapsiga soo u dhacay siday wax yihiin oo qofkas iska furanaya waxaan iri waa dhab waa jirtaa laakiin waxaa kaloo ogaataa inay jiraan jaamacado taf ah oo runtii maanta qiimo gal ah oo adduunkana laga ictiraafsan yahay UNESCO-na ictiraaftay waa ka way maqlayaa saas iri laakiin kuwaasoo kale bad waxaa la yidhi hal malaayaa qurmiya marka kuwaasoo kalea muxuu ahayto tayadii ku dheelaya waxaan aragnay dad jaamacadahaas kuliyadooda ka soo baxay la leeyahay oo dhakhaatiir lagu sheegayo oo haddana markii yacni aan aragnay qualitigooda aada u hooseeyo marka taas runtii waxaan wax kale kuma sii dheeraanaya comment badan kama sii bixinayo bikulli ixtiraam waa jaamacad kasta oo dadaal samaysay waan ixtiraamaya bacdamaa macna jaamacadeed ah bikulli ixtiraam yacni gobol kaste iyo maamul kaste iyo gobolka muxuu ahayto iyo caasimadaba laakiin waxaa loo baahan yahay in lagu kontrolo si manhajkii iyo standardkii iyo levelkii kor loogu qaado marka taasna wasaaradda kontroolkeeda iyo kawarqabkeeda xagga tayada wax weynay ka taraysa hadayna wasiirku waa ka dhawaaji taas waa yacni su-aashii baxday waaye marka waxaan kabayaa yacni muxuu ahayto jawaabteedii midda kale aan rabay waxay tahay wasaaradda runtii waxbarashada oo dhan ay ka tahay mas-uul nooc kasta ha noqoto waxaa jira maaragtay dugsiyo farsamo ayaa jira oo muhiimad u leh maxaa yeeley waddankii oo dhan haddii jaamacada layska furo oo la yidhaahdo waa yacni degree jaamacadeed oo waa muxuu ahayto waa doctor waa engineer waa saan dhexdii ay maqan tahay dadkii muxuu ahayto shaqooyinka yacni tababarka shaqooyinka yacni gaarka qaban lahaa oo muxuu ahayto farsamadii ayadana waxaa waaye waa gaab meesha jira siyaasadda uga aadan jaamacadda dugsiyadaas farsamada ah maxay tahay arinta jaamacadaha iyo heerka maanta ay taagan yihiin xaqiiqatan adaaba ka warqaba oo ku dhex jira dad Soomaaliyeed kulay hankoodana uu yahay inay wax baraan caruurteena Soomaaliyeed inay furteen yaan ka soo qaadaynaa laakiin waxaa muhiim ah tayada jaamacadda framework inaan u sameyno habraac in loo sameeyo control in loo sameeyo kadib waxay qaadan doontaa muddo in ay la qabsadaan jaamacadaha dalka ka jira taasaana go'aan ka gaari doonta jaamacaddan inay u qalanto in ay ahaato heer jaamacadeed ay sii ahaato iyo in kale taasna waxay u baahnaan doontaa in aan ka wada shaqeyno dhammaanteena
waxaa hadaayo lagula kaftamay wasiiradii ka horeeyay waa ku dhiiran waayeen ma ahan micnaheeda jaamacad ma ahan albaabada la isugu dhufto ma ahan micnaheeda waxaa loo baahan yahay waa in loo diyaariyo habraac controlling mechanism frameworks loogu talagalay jaamacadda inay ku noqoto jaamacad ay ku soo saarto arday kaas ayuu mari doonaa hanaan walba qofkii raba ama hay'adii rabta ama qoladii rabta in ay jaamacad furto ama jaamacadaha hadda jira caalamkana way ka dhacdaa jaamacadaha dhan UNESCO way controlshaa way baartaa tayadooda waxaa la kala gala heerar caalami heerar kala duwan la gala top 10 qaarka u dambeeya gala micnaheedu ma ahan albaabada la isugu dhufanaya laakiin waxaa la siinayaa bulshada go'aan ka gaarista waalidka ardaygiisa meeshuu geysan lahaa waxa u baahan inaan ka shaqeynana midaas shuruucdina aan ka shaqeyno insha Allah waan ku guda jirnaa hadeertaan baahidana iyo caqabadahana kuwan hadda arkaysaan waaye oo idin kama qarsoona laakiin hawsheedaan u baahanahay insha Allah inaad nagu la xisaabtantaan sidoo kale aad nagu garab gashaan haddii Ilaahay yiraahdo iskuulada farsamada meesha kaliya ee Soomaalida dhalinyarada Soomaaliyeed ay la'aayeen ama aanan jirin waxay iskuuladii farsamada markaan tagnay wasaaradda waxaan ka shaqeynay horta xarun walba ama gobol walba ma leeyahay iskuuladii farsamada ma noo dhisan yihiin iskuulada tababarada farsamada ma lahayn wax la yiraahdo iskuul farsamo ma jirin wax la yiraahdo laakiin tababaro farsamo ay jiray ay u bixiyeen TVET qaarna ay u bixiyeen vocational skill training marka hay'adaha fulin jiray wax sustainable ma ahayn 6 bilood wax yar la baraaya waa qof Soomaaliyeed meel kaga shaqeystana ma yaqaan hay'adaha qaar waxay iska xilsaari jireen wax yar oo vocational skill training u bixiyeen oo businessyada yar ama ganacsiyada yar in loo tababaro kadib ay wax yar ku caawiyaan wali ma ahayn wax bulshada Soomaaliyeed wax ka taaban karo waxaan ka mid ahaa dadkii hay'adaha la shaqeynay sanadii u dambeeyay waxaan dareemi jirnay in Soomaalinimadina waa kugu jirtaa oo waxa aad bixiso waxa loo baahan yahay inay ka dhex muuqato bulshada waxyaabaha aan donoriska kula xisaabtami jirnay marka waxa ka mid ahayd inta aad barto haddana maad siisid wixii uu ku bilaabi lahaa marka waxyaabaha ay xoog saaraan waa waxyaabaha aan joogtada ahayn waxyaabaha aan dagaalka ka galnaa waxa ka mid ahayd marka wax walba oo la siiyo ardayga Soomaaliyeed waa inay sustainable ahaadaan waxyaabaha xanuunka leh waxa ka mid ahayd farsamada waa u soo laaban doona macalinka Soomaaliyeed qofba meel uu ka fiirinayay waxa laga yaabaa wasiirka inuu ka arkayay tirada macallimiinta Soomaaliyeed oo aad u yar aniga maadaama aan ka soo shaqeeyay hay'adaha waxaan ka arkayay sustainability-ga waxyaabaha aad ka noo xanuujinaysa waxa ka mid ah hay'ad hiblaya imaanaysa oo fan ka soo siisay midalan meel kale ama agency oo international ah waxay leedahay macallimiin aan qaadanayaan tan u badan waa 5 sano macalinka ay qaadanayso inuu ardaygeena Soomaaliyeed uu wax baro waa kala xanuun badan tahay hadana iskuulka markuu waalidka haba yaraatee uu awoodo inuu lacagta la baxo ardayga subaxii diro waa ka xanuun badan tahay ardayga ama IDPs ku jira ama dan yar ee macalinkaas fiirinaya waxa uu soo bilaabayaa ardayga culture Soomaaliyeed waxaan leenahay in caruurteena 13 sano 12 sano ay ku gaaraan dugsi Quraanka private ee galandan iskuulka markay tagaan imtixaano laga qaado kalaaska 3aad u qalmo imtixaanaad markay maraan ardaygii waxa la leeyahay macallimiina la helay soo bax iskuulkan tag macalina wax ku dhigaya 5 sano loo dhigaya class 8 u dhameynaya imtixaankii dawladdu galaya macallinkii contractiga ka dhamaanay meesha istaagaysa marka ardayga Soomaaliyeed wuxuu banaanka la soo istaagaya cabasha imaanaysa wasaaradaha meelaha ka shaqeyn jirnay cabashada imaan jirtay wuxuu ka cabanayna waxay tahay iskuulkii 8aad dhameeyay ama form 1 hadda ka gudbay form 2 waa u socda iskuulkii waa ka haray maxaa uga hartay marka macallinkii maxaa la yiraahdaa contractiga ka dhamaaday waa waxyaabaha xanuunka gaarka aniga ii taaban jiray oo aan dhigi jiray sidee loogu heli karaa wax macallinka wax joogto ah canugan Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed qaybadeeda kala duwan waa laga yaabaa xanuunkaas inuu taabto si kala duwan si la mid ah hay'ado fangareeya jiro iskuulada ka bixiya waalidiinta danta yar ama dadka baahiyaha gaarka ah qaba lacagta ka bixiya waa la mid waa 2 sano 9 bilood 1 sano sanad dugsiyeed kadib markay dhamaato canugaas yarka marka guriga muxuu kula laabanayaa hay'adii baa joojisay ma ahan de iskuulkii baa dumay ma ahan hatta iskuulka duu dum Soomaalida wax la qabaa
marka horta heerkaasaan rabnaa inaan ka baxno xanuunka badan xaqiiqatan oo canugeena Soomaaliyeedna xanuunka ku ah waxyaabo kale oo isaga dulqaadan karnaa wadanka sustainable development goals ka iska sugi karnaa ilaa laga soo gaarayo laakiin de buug iyo qalinka inay meesha naga galaan xaqiiqatan waxay u baahan tahay in laga gudbo waxa la mid ah marka iskuulada farsamada in iskuuladii farsamada ay dib u soo laabtaan waxaan ka hormarsiinay horta inaan helno iskuulada inaan haysan waxay noogu jirtaa qorshahan hadda idin la wadaagi doono in iskuuladii aan helno macallimiinta haddeertaan la qaadanayo ay ka mid yihiin macallin loo tababaraayo farsamada kadib dhalinyaradeenna iyo carruurteena Soomaaliyeed ay saas ugu biiraan kadib ardaygeena shahaadada heesta ee banaanka soo baxa si uusan de u raadinin waxaan quality lahayn oo magac jaamacadeedna wata in uu ku biiri karo muruqmaalka uu isku ka soo bixi karo iskuul farsamo marka hanaankaasaan ku soconaa curriculumka la diyaarinaya qaar baa hadda bilowday oo laga shaqeynaya laakiin still infrastructure-kii xafiisyadii diyaarintii iskuuladii waa on process insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono haddii Ilaahay yiraahdo hay-adaha aan la shaqeyno marka waxaan dhihi karaa hay-adaha aan la shaqeyno horta waa kuwan wax joogta oo Soomaaliyeed ma ahan waxa ay la bixiyo laakiin waan uga mahadcelinaynaa wax badan hanaanka waxbarashada Soomaaliyeed waa ay taageereen qaarkoodna waa laga yaabaa inaan ku taagannahay oo hadeertaan ay naga caawinayaan sidaan u istaagi lahayn oo aan maxaa la yiraahdaa isugu tashan lahayn World Bank aan la shaqeynaa mashaariicda ugu badan ee dawladda wax soo marsiyana wasaaradda waxbarashadana si ayada kamid ah hadda laba mashruuc aan kala shaqeynaa mid la yiraahdo RCRF Somali Recurrent Cost and Reform waxay siiyaan hay-adaha arrimaha bulshada wasaaradaha arrimaha bulshada ka shaqeeyo waa arinta macallimiinta marka macallina la qaadanaya muddo lacag la siinaya aan la ogeyn soo marka waxyaabaha hadda aan u ololeeyno waxa kamid ah in de macallinkaas ay noo qaadanayaan macallin Soomaaliyeed oo inoo noqdo then lacagta ay ku bixinayaan macallinka Soomaaliyeed tababarada ay noogu bixiyaan wax un la isku maajigareeyo resource aan haysanay midka ayaga ay ahaayaan inaan ka faa'iideysano isku maajigareen waxa kale oo la mid ah asagana mashruuc had human capital la yiraahdo oo macallimiinta tababara waxa isku soo aaday isagoo muddo iska taagnaa inaan furnay kadib macallimiinta la inoo qaatay tababar u sameeyaa meelaha tababarada qalabeeya arrimahaas ka shaqeeya iskuuladii raadiya oo farsamada iyo inaan isku maajigareeno ayadana hay-adaha kale fangaray USAID kamid ah waxa kamid ah UK8 waxa kamid ah UN emergency iyo ka shaqeeyaan emergency-go waliba haddii caqabada jirta waxa kamid ah aan aragnay waxa la yiri 5 sano u dambeysay Soomaaliya waxbarashada carruurta Soomaaliyeed waxa ku baxday 450 milyan oo dollar impactiga raadinay marka saameynta ay ku yeesheen carruurteena Soomaaliyeed wax ka yar 1% ba aad Soomaaliyeed 0.0 something yaa noqotay marka waxaan isweydiinay see ku baxday waxay ku baxaysaa fundarki donorki wuxuu siinayaa grant agent qolo la yiraahdo oo soo qaadanaysa in bay kala ka goosanaysa waxay u bixinaysaa administrative operation cost qolo kale la siinaya subcontract ayadan in bay la haraysaa qolo kale la siinaya oo companies ah in bay la harayaan ilaa consultant expert ay noo keenayaan meesha ku dhamaatay marka lacagta ma gaarin ba iskuulkii iyo waalidkii ardayga ma gaarin marka de waa dareemi kartaan in hanaankaas iyo isla xisaabtanka adiga aan nagu haystaan in la mid anaga hay-adaha aan la galno aan iraano jaranjarooyinkan bal inta ka baxdaan ma heli karna hanaan from meesha lacagta ka soo baxday to macallinka ama ardayga iyo hay-adii la shaqeynaysa ee dawladeed ama hay-adii kale ee maxaa la yiraahdaa international marka waa sidaas xaaladda mashaariicda marka waa wax badan oo in la rabo in laga guurana adinka la rabo in laga shaqeysana hadii Ilaahay yiraahdo waa mahadsantiin waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa qaabka runtii aad iyo aad looga shaafiseen su'aalihii tirada badnaa wasaaradda wada shaqeyn joogtaan leena ma aha marka ugu horeyso aan college arki doono waxaan yani yeelan doona kulleeto jaanis kale yeelan doona weliba hadduu al yiraahdo jeclaan leena taa kormeer inaan ku imaano maartay wasaaradda aan soo boqonay hay'adaheeda arinta farsamada sida hadda wasiiradda ugu dhawaajisay waa muhiimadda gaarka u leedahay weliba yani maamulka waxaan ugu jeeday su'aasha waxay ahayd maxaa yeelay hay-ado waa si u asiibtay hay-ada ajaanib ayaa iska maamulin jiray arrimaha farsamada marka yani dugsiyada farsamada training vocational training schools dhihi jiray marka runtii arintaasna gaar ahaan in loo ogaado
وافعنتها لنا أبو دكسي فرصة ما وحوين كتر دون مستقبلكم الصومالي آدي آدم وسود ويننا ما تنكيني وحان كلا آد ربعنا قمت عليو سنة تردنا شرفت بدن ويو سؤاله رنت وحكو أولكها موجنا ليفل كود السرع حق أقونتا يعني وليبا دين عن برشادة آدم وسود ويننا آدم ما سنتين وحان ربا قوليتو هنا كسور رجوا آدم ما سنتين وبالله التوفيق والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا نوح رين شركين مرة.